أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سو دhowaada asxaabta qaaliga baarak allahu fiikum. maanta waxaynu yara dul istaagi doonaa application runtii aad u muhiim ah oo aad u qiimo badan. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. kana mid ah applicationada aan ugu jecelahay in aadka u isticmaalo waa application kaa dhagaysanaya qur'aanka kariimka ah. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. halkii aad u baahan lahayd inuu qof kaa dhagaysto oo aad dayday lahayd qur'aanka cid kaa dhagaysata ayaa applicationkani isaga ayaa kaa dhagaysanaya. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا application kan magaciisa waxaa la yiraahdaa tartiil. waxaanad ula soo degaysaa app store-ka ama play store-ka waxaad ku qoraysaa tartiil. kadib barnaamijkan ayaa kuu soo baxaya. marka aad barnaamijkan la soo degto waxa uu ku weydiinayaa gmail-kaaga. waxaad gelinaysaa gmail-kaaga iyo username buu ku weydiinayaa. marka magacaaga ayaad gelinaysaa. magacaaga haddii uu diido waxbaad ka bedelaysaa ama number baad raacinaysaa si uu u yeelo. oo inta badan wuxuu ku odhanayaa username-kan hore ayaa loo lahaa oo loo isticmaalay. markaa number baad raacinaysaa ama calaamad kale ayaad raacinaysaa. markuu sidaasi ku aqbalo waxa uu kuu soo saarayaa safxadda qur'aanka kariimka ah. haddaba barnaamijkani waa laba qaybood. waa qayb lacag ah oo aad lacag bixinayso iyo qayb free ah. marka qaybta qur'aanka kaa dhagaysanaysaa waa free oo waa bilaash. haddaba si aad isaga dhagaysato qur'aankii aad diyaarisay ee aad xifdiday laba hab ayaad samayn kartaa. kow, in aad settingska ayaad tegaysaa kadibna calaamadda yar ayaad furaysaa. marka waxa weeyaan numberiskii aayaadka ayuu kuu soo dhigayaa, aayadihiina wuu kaa masaxayaa.
haddii aad halkaa xidho calaamadda yar aad xidhana waxa uu kaa wada xidhayaa aayaadkii iyo numbariskii aayaadka oo beyj cad ayaa kuu soo baxaya. ishaa yar baad bakhtiinaysaa aayaadka qur-aanka kuu soo saaraysa markaa beyjkii wuu caddaanayaa, kadibna waxa aad ku dhufanaysaa markaa calaamadda recordingka. sidaasi ayaad kaga baxaysaa qur-aankii aad diyaarisay ee aad xifdiday, isaga ayaa kaa dhagaysanaya. aayad waloo aad akhriyaysana waa uu qorayaa, marka haddii aad qalado wuu istaagayaa, marka waa inaad dib ugu noqoto. marka qaybta lacagta waxaa ka mid a inuu ku baraarujiyo oo cod sameeyo ama inuu casaan saaro meelihii aad qaladay. waxyaabaha aanu kaa saxayn waxaa ka mid a xarakaadka. qofku hadduu xarakadii qaldayo barnaamijkani kama sixi karo, laakiin xifdigii iyo aayaadkii qofkii qur-aanka xifdisanaa ayuu kaa dhagaysanaya. waa barnaamij runtii aada u qiimo badan. haddii aad tahay qof xaafida oo qur-aanka diyaarinaya, ama aad tahay arday qur-aanka dhigta oo qur-aanka casharkii doonaya cid ka dhagaysata, barnaamijkani aad ayuu ku caawinayaa insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.